بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رير أهل الذكر أينما كنتم، إلهي waxaan idin weydiinaa nabadgelyada iyo naxariista Ilaahay dushiina inay ahaato, naftiina iyo maalkiina iyo awlaadiina iyo cirdigiina macnaha sharaftiina intaba Allah idin xifdiyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala boqorka ahay diinta dhammaanteenba Allah noo xifdiyo, wixii sharna Allah naga qabto. بعد السلام جمعة وناكسن وبرنامج كيني أحلى قصص وذكر، قصة عجيب جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. وقهلي دونتين آد wax badan dhiirigelin ka qaada doontiin, dad badan hurdada ka kici doona. waa xaqiiqatan way dheer tahay, waa ilaa idin dhamaynaya bilaaw ilaa dhamaad, step by step adoo joogkan joogo buuq ku jirin dhageyso qisadan noo bilaabaya insha Allah. maalin dhaweeto waan iga soo dhahay abaayooyinkii suuratul baqara ka faa'iiday feedback aan ka rabaa, ababa mataqaana faa'iidadii inay soo celishaan oo si aan gabdho kale walaalaheen ula qaybsado. gabdho badan ila soo xariireen, ilaahay khayr ha siiyo, ajri xasanaadna Allah ka siiyo. gabadhan abaaya ku jirta marka hal mar waxaan soo xasuusinayaa description-kan telefonkayga WhatsApp-ka kuu soo dhigayaa haddaa u baahatid in aan qiso ila wadaagtid. meesha iga fiirsanaysa shaashada qaybteeda hoose telefonkayga ka soo qoro, waa WhatsApp, fariin ii dhaaf insha Allah, ana kuu soo jawaabaya. markaan taas ka baxo, walaalahayga qaaliga ahoo abaaya ila soo xiriirtay, gabdhihii ila soo xiriiray ka mid ahayd, waxay dhahdaa abaaya filsan khayr Allah ku siiyo feedback oo waxaan ku wadaa cajiib ah. qisadu waxay ku bilaabatay sida tan. waxay dhahdaa abaaya filsan waxaan ahay gabar lagu soo tarbiyay diinta islaamka, macnaha la baray qur'aankii iyo xadiistii iyo khayraadka ma sha Allah, cilmi maadi cilmi diinad waalidkay way soo bareen dhahdaa. high schoolka markaan dhameeyay wiilaan isjecleen waa laygu daray dhahdaa. wiilka waxay tiri aada isku jecleen, wuxuu ku noolaay tiri Yurub, ana waxaan joogay tiri Afrika. wuxuu ii imaaday tiri muddo sanad iyo bar ee markaan isqabno 2 jeer. sharciga yaraa waxay la dhahday wuu ii yimiday 2 jeer oo soo booqday, kadib xoogay culeysana koray isku imaatinkeena. meesh xoogay buuqa ka bilowday, isfahmi waay fara badan. waxay dhahday marka abaayo dhowr jeer wax ii xareeyay, dhowr jeer isku dayay wiilka inta awoodiisa ah, laakiin waxba uma suurtagelin. waxaan imiday tiri Turkiga markaan wax yar joogay xaq ma dhigin ee dhahday. waxaan galay tiri Greega markaan galay dhahday oo intaas waxay tiri ani wiilka isma fahamno, dhaqaalo ii soo dira waxba iguma tarto, waalidkay Mareykan ku nool wixii dhal aabay hooyaday waxba sheegin. waxay dhahday meeshii macnaha dagaal iyo buuq joogto ah dhaco, dhowr jeer furaan eriyay tiri xataa maku furaa ugu dhahday. wiilkii dhammaay kadeed aniga marka waxay dhahday waan suuxi jiray, waxaan qabi jiray tiri jiman iyo waxaasan qabi jiray markaan yaraay. waxay dhahday markii aan guursado wixii way ugu sii bateen, macnaha shaqadoodii iska qabsadeen. depression, oohin, malayacniya, xanaaq, stress, calooshoo la iga qabto, isbitaalka la igeeyo. markaan haddana sii tagay Greek waa ka daray dhahday. bes waxaan rafaaday dhahday, oo rafaado isbitaalka la igeeyo, la iga keeno xanuunsanahay. waxaas leeyahay tiri depressionka waxaa iskaga bi'isaa musalsalaadka, heesahayga, salaadaas waa dukadaa tiri. horta wiilkii waxay tiri fiicnaa qadku ka baxay. waxay dhahday guri ma degano, meel uu degan yahay lama arko, saaxiibadiisu qof mar la seexanaa. waxay dhahday shilinkoo helo waxba uma taro, aniga hadduu ii soo diro waxba iima tarayso. waxay tiri waalidkay hooyaday aabahay oo Mareykan jooga wax walba ii soo diraan ha sheegin. waxay dhahday 5 bishi ilama dhaafto. waxay dhahday balaaya igu kabneed, stresska iiga daran. waxay dhahday wallahi gabadhaas
oohin xanuun caloosha iga soo boodaayo isbitaalka la geynayo anoo xaaladda ku suganaa gabar marka waxay tiri oo markaan jarmalka imid oo roommate aan nahay macnaha dadka isla dego waaye guriga ayagu dhahday tiri abaayo waxaan ku tusinayaa qisooyin gabar abaaye ah ee nala qaybsato maxaa la dhahaa filsan cafiifaa la yidhaahdaa sidii aan kugu soo googilgareeyey dhahda markaan kusoo googilgareeyey micnaa qisooyinkii arka maalin kale haddana waxaa arkay tiri youtubeka qisaba qisay ii dhiibtay dhahda meeshiiaan ku ooyey qalbigiyaa ii degay noloshayda dhan ah hal mar isbedeshay dhahda xaqiiqatan wallaahi waxay tiri suuratulbaqara iyo fawaa'idkeeda ka sheekeynaysay go-aanaan qaatay dhahda marka inaan akhristo waxay dhahday suuratulbaqara waxaan bilaabay macnaha markaa adigu helayay tiri waa 2018 dhammaadkeedii bisha 11 waaye waxay dhahday suuratulbaqara waxaan bilaabay dhammaadkii oo 2019 bisha koowaad nolosheedu dhan hal mar isbedeshay dhahda horta xanuunka depressionka meeluu ka baxay adigu kaala sheeg markaan suuratulbaqara bilaabay yoomiyan aa u bilaabay dhahda maalin kasto ina akhristo hal fadhi ku akhriyo horta intaan hal fadhi ku akhrin waxay tiri waa xanuunsanaya muddo waxay tiri odiga xoogaa maalmo koobana waa xanuunsaday xunqaaco matag tacbaan aniga dhammaan waxay tiri naqaskoo la igu dhajiyo waxay dhahda marka qur-aanka marka kutubkan soo qaada hay tiri xabadka iska saaraa waa u nastaa waa ku laabtaa rafada horta ku arkay dhahda ku xanuunsaday dhahda koo kadibna maasha allah tabaaraka raxmaan birixaan dhah aad iyo aad u fiicnaaday dhah hal maalin waa hadda bil gudaheed anuu suuratulbaqara akhrinaynin waxay tiri markaan akhriyo wadaadkaygana waa u niyoo jiray waxaan dhihi jiray tiri ilaahow rabbiyo asigana maskiinka culayska saaran ka dulqaad anigana waxay tiri waan isku tufi jiray abaayo cashir fara badan aan ka baranayna maasha allah tabaaraka raxmaan halkaas waxay dhahda marka wiilkii dhammaay wax hurdo ka soo kacoo noqoy anigini xanuunkii oo dhanaa layga siibay maxaan helay farxad aad iyo aad nolosheedii isbedeshay hal mar waa hadda bil gudaheeda wiilkii wuxuu yidhi tiri maxaa iga qaldanaa kaale dharkiisay tiri wiil boqol xaafadba maruu seexanay tiri wiilka guri xataa ma garaysa waa baxay tiri guriga soo kiriistay wax dharkiisu isku soo urursaday wiilkii sometimes marmarka gabalbalwada u taataabanayay wixii oo dhan wuu ka haray masjidku ku xirmay shalay shaqadii uu haayay dhahday uu haddana haaya lacagtii seem waxba lagama kordhinin oo ma la dhahaayo lacagtii aa loo kordhiyo dhaqaale kala soo galay isla dhaqaalihii aa barakoobay waxay dhahda abaayo waxaan dhihi jiray tiri majinaa hagbad nugula jiro ama majinaa nugula jiro waxay ahayd lacagta la aruuriya ayuuto cajiib jiddan waxay dhahday waa soo socotaa sheekooyin waaweynaa soo socda gabadhiyo waxay dhahda abaayo hal maraan iswaraysanay tir hadda waxaasoo dhan waa bil waxaan dhamayn maxaa naga qaldanaay maxaa dhacay aniga naftirkeyga sidoo kale dhaqaaliya i barakoobay waan dega waan qaboobay waxay dhahday xanuunadii dhammaay meelay ka baxeen aan waaye waxay dhahday maasha allah tabaaraka raxmaan anigii xaajigayga isfaham isi soo wicid in laysku xiiso farxad reereen xaajigayga marka wuu i imaan lahaayay tir markaan meeshaan ku rafaadayay laakiin iima imaan karo sharcigaaba lagala laabtay ku tiri intaan qaylada buuqa qadjac sharcigaa lagala laabto bilaa sharciga soo istaaga wiilka dhammaan noloshoo caadi uga dhacayo marka culammada qaar waxay dhahaan markuu gabadhu jin qabto wiilkan way soo weeraraan markuu guursado suuqay weliba geliyaana la dhahaa xaqiiqatan wallaahi sheekh weyna igu dhahay marka gabadhii abaaye ahayd hal mar wiilka dhammaan waxay tiri wax horda ka soo kaca noqo guri kareyso maasha allah tabaaraka raxmaan nadaafadda dharkiisii
nin maasha allah muratab ah qurux badan masaajidka ku xiran xataa waxay tiri anaaba salaadaha dukanayay oo salaada ilaalinayay wiilkaas xataa waxyaabahaas xitaa kalama jeclayna wiil weliba akhlaaq lagu soo korsho ahaayay tir waxay dhahday maasha allah tabaaraka raxmaan masaajidka wuxuu ka mid noqday hadda dadka mas-uuliyiinta ah oo ka shaqeeyo maamuliinta ka ah waxay dhahday nolol macaanaan galnay horta sharcigiyaa la siiyey dhag ayadoo waxay tiri 2 bilood kasoo wareegin inta akhrinay qur-aanka suuratulbaqara waxay dhahday wuu ii imaaday markuu ii imaaday maasha allah tabaaraka raxmaan baby yar oo qurux badan ilaahay kala sii 10 cisho gudaheeda ayagoo isla joogaan maasha allah allahumma baarik durriya saalixa allah uga dhigo magac fiican waa loo baxsha asxaabta ka mid ah الله أساعدني ما شاء الله تبارك الرحمن قروح بدن أيلا أقص راقيتر ما شاء الله ويلك يركع واحد هذا أبايو can you imagine إن أنا أركو ويلكس إيه ماذا دكتور تيجي جري سيا ilmo uur u qaado iska daba wareegi jiray bilooyin leeli joogi jiray laba jeer la ii imaado adaa lagu dhahaa waxaan alxamdulilah shukr bilcaalamiin hada min fadli rabbi haddana wax walba way qadaran yihiin wax walba xilliga teemkooda imaanayaan maasha allah tani wax badan markuu qofku waxyaabahaas qabo xasidka ma ogolo ilaahay horta ilmaha celiyo binu aadam shaydaan waxba ma taro aadanana waxba ma taro fawqa 7 samaawaad oo amarku ka socdaa laakiin ma sha Allah tabaaraka raxmaan ilaahay yaa noo sheegin waa xasid jiro quraanka suuratul baqara fadligeedana ilaahay yaa noo sheegay cid kale sheegid kama rabno marka waxay dhahdaa abaayo ma sha Allah bibiran urkiisa qaaday وإسكال لابتي تري حاجة جيج ما شاء الله تبارك الرحمن إن أنا جي وحيد تري بيبيرة إلها السيء عندلي تذكر حيد يجري ترى باه شرعيك محكاة قد عو كاس وضع وحنا يجري تري سوري ما ترى عدلا دل ما يوقع قاي مركا واحد هذا أبايو خير سيدا أن شيء نقطة الخير يقوم بجرم ودنكي ساعة شيب جدا على إيجا قاعدة تري دفل السيء horta sharcigiis waa la siiyay marka la siiyay hadana la iguma dhaafin tir waa la qaaday tafaalisiya magaalo kale oo weyn la geeyay ma sha Allah tabaaraka raxmaan waxay dhahday familkayga soo haray tir xaq hooyaday iyo aabahay waxay dhahday hooyo ciyaalkii walaalahay way istagaalayaan way isdilayaan xataa midiya la isku qaadan tir wiilashu waaweynka waa la isku dhaawacay tir dhowr jeer midi waxay tir way iscunayeen waxaan ku dhahay tir hooyo kaale soo fariiso hooyadayna diintay taqaanaa tir waxaan ku yiri suuratul baqara akhriso hooyo akhriso suuratul baqara hooyada sidii yeeshay tir suuratul baqara akhrisatay ma sha Allah tabaaraka raxmaan wiilashi laba isfiirso waa la waayay kuwa ma sha Allah barakaysan ay noqdeen aabay waxay tir shaqo la'aan haysa shaqo fiican oo wuxuu helay tir oo ma sha Allah traag oo hadda wada war nolosha dhana isfurfurtay dhahday dhaqaale anigan aabay waxay tir intii soo gali jirto baa soo gasho dhaqaalan sameeyay xaajigayga dhaqaalo sameeyay ما شاء الله تبارك الرحمن إله ربي الرحمن وزائدي وبركي وإله ربي الرحمن المها أولاد أهلك قرابة أنت وزائدي وبركي ما شاء الله خيركم إلهي سبحانه وتعالى أنت كو قتلنا الله سبحانه وتعالى بقولك كو إسراقه أنت كو عدت سورة البقرة الله أفضل ذايو أنت ما ركتاي إن إيشك أن أخوننا حكا شيء تقولي كذا إلهي سبحانه وتعالى بقركاها رحمديس بركديس إنك جرت وخورا نقول شيء ما همد أنيك أمانت إذن هاي جس محاجي سوي حسوسين ويا كليات أسرارتك جرتو قرآن كان إدينتين إسلامك مركا أسرارت السوق هذا فوائد كذا واهلنا أم بس سرت جرتو قرآنك ما شاء الله إنه لا شك وفضينا أخذها بركة تركها حسر ولا تستطيع البطل النبي عليه الصلاة والسلام سورة البقرة قاد الشديد وحواي بركو مالك يا بركوبة أولادي يا بركوبة يسدينتي يا بركوبة إبرتين وأدي كقولك لكو بركوبة تركوا حسر وخسارة كتجديدنا ولا تستطيع هالبضلة من أودان الشياطين يتشنك إن مركتاي معناه سقف كاسو وحق بجارسيان مركانو حلو فسرة ضدك عاجز كا مركا ما شاء الله عجزكي كسلكي خمجي همجي إلى هذا نقدر القارطة دمانتين بالله عليكم قريهنا كشتا أخرستا أنا جنو حينك عد صنايع قيب كنا يجوسوا دعيسين دين عيق الدعاء مركات
قرآن كيني غير كيني معدين هشين أترهن أباي فلسن الدنيا آخر الله أقول ليبانو أدين كان الدنيا آخر الله هذين ليبانو لما أنتين با أنت جبر ولا على إيه الصوماليات مقع الصومال نما شيء ولا شيء meel alay meesha joogtiin cise iyo sharaf igu noolaada adduun aqrina Allah idin liibaano khayr barak walaalahayga qaaliga ahow wiilashana waa my heart kiga qalbigayga waa ilaahay barakeey wiilashana Allah subhanahu wa ta'ala boqorka aabayaasha iyo hooyooyinka